السلام عليكم muuqaalka noor waxaan ku sheegnay inaan muuqaal ka sameyn doono xaaladda Faransiiska ka soo cusboonaatay ama xaaladda Faransiiska jirta ee kaliya lagu tilmaami karo xayawaannimo laakiin intaan muuqaalka bilaabin falaadi ilmeerku garab fadhiya meel maciyal ku garab fadhiyo ka sababtoo ah waxaan wax aqligeena wax mili kara ma aan iska dayn meeyar inta marka sameysay kadib namari muuqaalka inaan bilaabana hadda soo dhawaada markale dalkan Faransiiska la yiraahdo xadaariga dimuqraadiga xuquuqda bini'aadamka oo dooda waliba gaar ahaan xuquuqda dumarka oo sidoo isku yaqaanaan ee wadamada islaamka kula taliyeen dumarkooda xijaabka waaweyn culus ka saaran oo dumarka dharka ka fudeediyaan Faransiiska hadaba waxa soo saaray maalin dhaweed arin caalamka dhan ka yaabsay muddadii u dhaxaysay 1950 ilaa 2020 Faransiiska waxa lagu kufsaday 70 sano kaliya Faransiiska waxa lagu kufsaday 330,000 oo caruur ma ahan dad waaweyn caruur ah walibana waxaan arinta foosha xun la sameeyay rag diinta Kiristaanka hogaaminaya ama macallimiinta u dhiga ciyaalka diinta Kiristaanka ayna xoogaa isla faan xagan Catholic waxa haysta qaaradda Yurub galbeedkeeda iyo dalka Mareykanka ay diinta Catholic haysta Kiristaanka waxaana aaminsan badanka in ilmuhu intuu yar yahay inta la kaxeeyo lacag laga bixiyo kaniisad lagu hayo ama meel kale diinta Kiristaanka lagu barto lagu hayo saboordanka inuu naqaano kale waqti xaadirkan ilmahana muddadu xagaas ku jiro ee uu diinta baranayo ay macallimiintaasi xumaantaas ku sameeyaan ciyaalka sababtuna waxay tahay nimankan diinta Kiristaanka ama baabayaashan ama anaraana shaqyada diinta Kiristaanka lama ogola inay guursadaan taasoo keenaysa in ciyaalka wax ka dayaan wiil iyo gabadh ku doona ahaadee in ciyaalka wax ka dayaan hadaba waxaan oo dhan waa looga inay kaniisada ka dhacaan laakiin waxa cajiib ka noqotay muddo 70 sano kaliya in la kuso 330,000 oo ciyaalka waliba waqti xaadirkan qaarkood waa gaboobeen waa dad waaweyn qaarna wali waa dhalinyaro weyn u leeyihiin waxaan oo dhan aqliga bini'aadamka qaadan kar leeyahay warbaahinta reer galbeedku wax weyn ba kama soo qaadeen oo si yar waxa uga hadleen iska normal waliba warbaahinta islaamku xataa si fiican uga ma hadal koran salaanadi oday kuntu sano jira oo guurso gabadh yar oo 18 sano ama 16 sano jirta oo waliba familkeedu ogol yihiin inay guursato waqtigaas ay bilaabeen warbaahinta reer galbeedku inay qayliyaan ay dhaadaan aw xuquuqdii gabadhu aw waxaan jirnay ku sheekayaan laakiin ka waran kufsiga 330,000 oo ciyaalaha waliba bal ka waran ilmo yar oo dunida sanada koorkeedii ku soo biray waxba u warhaynin in xumaanta inta lagu sameeyo runaantii xoolanimo oo lagu tilmaami kara diinta doonta hayso Christian Hinduism laakiin dameerka bini'aadamka diinta doonta hayso Hinduism Buddhism Christian Yahud iyo Muslim diinta doonta hayso dameerka bini'aadamku kuma siinay marnaba inaad ficilo noocaas oo kala ku dhaqaaqdo oo ilmo yar oo ciyaalaad wax ka raadiso insaankuna markiisa horeba xumaanta uu nacib yahay khalqiga Ilaahay ku sameeyo awalkiisaba xumaanta uu nacib marka ficilada ay ku dhaqaaqaan odayaasha Kiristaanku waxaan baa lagu tilmaami karaa xayawaannimo haddii soo laabano dumarkan xijaaban ee kaniisada ka shaqeeya dumarkan waxay warbaahinta reer galbeedka qaarkood ugu yeedhaan ku magacaabaanba adoomaha jinsiga adoomaha jinsiga waxa laga wadaa waa gabdho mar walba ay iska isticmaalaan odayaasha baadiriintu ay soo doonaan ka yeelan maadaama ay odayaashaasi guursaneen taasoo keenaysa in meel walba ka qaraabtaan ciyaal ahaadaan ama dumar kale ahaadaanba kaniisadana badanka waxa ka dhaca in qofku ama salahan gabadhu markii dambi soo sameeyso ay odayga baadiriga ama baabahaas u tagayso oo qol cidla labadooda kaliya loo soo xirayo ay u sheegaysa wax walba sameeyay hadii xumaan soo sameeyay hadii faaxisho soo sameeyay isaga u sheegaysa oo waxba kama qarnayso waxayna aaminsan yihiin khaladaadka ay gifafka ay soo sameeyeen inuu isagu dambi dhaafayo laakiin gabadhaasi markii ninkan baabahaas oo aan guursanin oo guur loo ogoleen qol kaliya cidla kula noqoto xumaan ay dhacaysa diinta islaamkuna mar hore ayaa xaraantinimeysan laba qof oo muxram ahayn ay meel cidla ku noqdaan guri ahaata ama meel kale ba ahaatee inay meel kaligood joogaan sababtoo shaytaanka ayaa sadaxaynaya hadaba waxaan ka hadlaynaa dhan waa kaliya 70 sano ka waran kaniisada ilaa waqti hore quruun bay soo jireen baabayaashana waligood ma soo guursan jirin sidaan bay ciyaalka ama dumarku imaado uga qaraabsan jireen 70 sano kaliya xogtooda ayaa la soo saaray oo ahayd in 330,000 kufsadeen bal ka waran waqtigii hore aan xataa social media jirin ama wax lagu dabagalo dadkan aan jirin hadaba xalka kaliya muxuu yahay xalka u banaan si loo joojiyo kufsiga kaniisada ka dhacaya xalku wuxuu yahay marka hore waa in odayaashan baabayaashan la leeyahay ma guursadaan
waa in loo ogolaado inay guursadaan say ciyaalkan ama dumarkan kale masaakiinta ay ka qaraabsanayaan ay iskaga daayaan waa inay guursadaan marka hore waa talabaade waa in qofta dumarka loo xijaabo oo la ixtiraamo oo aan loo dhawaanin oo la taabanin haddii kale ay qaawanaatay iyadu raggana way fitnaynaysaa iyadana kolba si loo damaacinayo ay sharafteedu halis gelaysaa laakiin talooyinkan ay soo gudbinay Faransiisku marna ma aqbalayo in gabadh loo xijaabo oo la asturo oo loo dhawaanin marna ma aqbalayaan markii arrintan soo baxday kadib dad badan oo ku taxanaa kaniisada ku xidhnaan jiray oo Catholic ah markoodii hore kaniisada way ka goosteen ciyaalkoodina way ka kaxaysteen xataa tabarucaadka kaniisada siin jireen way ka goosteen sababtoo arrintan soo baxday wax maskaxdoodu qaadan wada ay ku noqdeen ilmaha ciyaalka inaad lacag ka bixiso istiraada diinta kristanka la soo baro oo meel u geyso aadana la soo xumaanay maskaxdoodu way qaadan weydii saadartay ciyaalkoodina way ka kaxaysteen lacagtina way ka goosteen haddaba ma xuma in binaadamku wax kala barto Faransiiska ama kuwan Catholic-ana waxay u baahan yihiin muslimiinta ka bartaan qaabka gabadha loo ixtiraamo qaabka gabadha aan ugu dhawaanin ninkuna waa inuu gabadhaan u qabin oo aan muxramkiisa ahayn aanu taaban karin ama u dhawaan karin waxyaabahaas oo dhan muslimka ka bartaan ay u baahan yihiin tusaalahaan haddaan taariikhda dib ugu noqono waqtigii saliibiyiinta ama reer galbeedku kusoo duuleen dhulkan Shaam oo Quds qabsadeen markii ugu horreysay Quds qabsadeen waxyaabihii ugu horreeyay ka barteen muslimiinta waxaa ka mid ahayd saamuunta may qoonin markaa koor waxay ka barteen muslimiinta markaa saamuuntaas ka mid ahayd iyo sidoo kale qabayska joogtada oo Yurub qaarkood waxay qaadan jireen bilooyin oo aanay jirkooda qabaysan ama biyo isku shubin laakiin markii ay muslimiintu yimaadeen nadaafadaas ay ka barteen in saamuun la isticmaalo iyo sidoo kale qabayska joogtada ugu yaraan maalinka Jimcaha la qabaysanayo ama usbuuci ka badan la qabaysanayo ilaa waqti xaadirka laakiin waxaad arki kartaa muslimiintu inay yihiin dadka ugu nadaafada badan sababtoo ah nadaafadu waa qayb ka mid ah diinteena laakiin haddii aad fiirsato diimaha kale waliba Itoobiya qofka joogo kale uu arki karaa si nadaafad darro yihiin oo Itoobiyaanka qaarkood baa arkaysan asaabic cadayaninba qaarkoodna aanay qabaysaninba muddo badan markana binaadamku wax kala bartaan ma xuma soo kale boqorad Elizabeth lagu magacaabi jiray oo Spain ka talin jirtay muslimiinta waqtiga Andalus ka soo saartay kadib xoogaa muslimiin ayaa Spain ku haray waxa sameysay muslimiinta waxyaabo ku ganaxda waxa kamid ah in suuliyaasha ka burburiso macnaha say nadaafadu isku dhaxdaato muslimiintu dad nadaafad banay ahaayeen waxyaabo cuna qabateenka ku saarto waxa kamid ah suuliyaashii ay ka burburisay muuqaalkeena maanta intaas nuugu yahay waxa rajaynaa inuu ku cajabiyay fadlan u cusubtay subscribe sarsan noola socoto muuqaalada dambe lana sii wada asxaabtaada والسلام عليكم